waxaa si aad iyo dib ugu soo laabtay isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha waddada isku xirta kilomitir 4 iyo sidoo kale tarabuunka waddadan oo aan haatan si toos aan ugu suganahay ayaa maalin ka hor ama habeen ka hor waxaa ka dhacay dagaal xoog leh oo dhex maray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo ciidamo daacad u ah mucaaradka shalay waddadan waa ay xirneed ma aysan jirin wax gaadiid ah oo isticmaalayay iyadoo qaybo ka mid ah waddadan ay ku go'sanaayeen biro iyo caratuuryo ay dhigeen ciidamo militari ah oo daacad u ah siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxaa wararku ay sheegayaan in waddadan haatan ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana ay ka guureen ciidamadii militariga ahaa ee habeen ka hor halkan ka dagaalamayay kuwaasi oo la sheegay in ay degeen qaybo ka mid ah degmooyinka Hodan iyo Holwadaag gaar ahaan xaafadaha Siigaale ilaa iyo halka loo yaqaano sayidka oo ay isku fidiyeen dadyowga ayaa weliba sidoo kale gaadiidka noocyadiisa kala duwan ayaa si caadi u isticmaalaya sidoo kale waxaa jira barakac xoog leh oo ay sameynayaan dadka shacabka ah ee ku nool xaafado ka tirsan degmooyinka Hodan iyo Holwadaag oo la tilmaamay in qaybo ka mid ah ay ku sugan yihiin ciidamo daacad u ah mucaaradka iyo sidoo kale ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya oo xilli walbo la filan karo in dagaal uu dhex maro dadka ayaa waxa ay ka soo barakacayaan xaafadihii ay deganaayeen iyagoo horay u soo qaadanaya agab allaala agabkii ay awoodeen in ay gacmaha ku soo qaataan iyadoo markii aad dhex joogto waddooyinka qaar ee magaalada caasimadda aad arkayso gaadiid ay ku raran yihiin agabyada kala duwan oo dadku ay isticmaalaan sida agabyada loo isticmaalo jiifka dharka iyo sidoo kale agabyada kale ee loo isticmaalo cuntada kuwaasi oo beegsanaya goobo ka fog goobaha cabsida colaadeed ay ka taagan tahay xaaladda muqdisho ayaa haatan iyadu waxa ay tahay mid degan balse cabsi ayaa jirta oo mar waliba waxaa la filan karaa in mar kale dagaal uu ka qarxo isla markaana uu u dhex maro ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo waliba kuwa siyaasiyiinta mucaaradka farmaajo si nadiif ah u imaaday habeen intaas milyan ah u soo baxday si nadiif ah u wareejiyay xaalad hadda ay maroosna xaalad oo muxuu ahay oo nasiib daro waay hadda dadkii xaafadihii degnaay Holwadaag muxuu ahay tarbuunka war meel fiyo ma lahan wada ilaa kaaran baladka habaaskiisa buxuu habaaskiisa marka labada inaa waxaan u baaqaynaa war waa yaabanahay war dagaal ma laga bixi karo wallahi dagaal qof lee ku dhintay qof ma ku noolaado war waxaan siyaasad waa markay wallahi ina ay u dhici weysay ninka dagaalka wado saa ku dhib qabo xabad haday bilaabatay cid ay taqaana male waa mucaarada ka leex xamale waa dawladda ka leex xamale in alla ninkii ka hor maantay ku dhacaysa waxa fiican tanaasul in la sameeyo waxa lagu jiraa bir Ramadaan qofka muslimka dhigiisa in la daadiyo ma banaan bilaaha xurmada leh qofka muslimka in la dhimana ma banaan waxa laga yaabaa hooyooyin iyo waarid guuraayo oo qaxaya ay ishay awood ay ku adeegsadaan aysan haysanin waxaa dhibkan iyo rafaadkan nugula dhalay annaka wax ku dhalana waa laga fiican yahay waxaas waxa ay keenay nin aan shalay aanu u soo marnaa baxnay oo habeen u taagnayn oo maartay u sameeyna maartay waxaan u sameeyay madaxweyne hore oo aaminay ayaa maanta wuxuu noo qasbay in annaga dhan oo soo marnaa baxnay in annaga maanta dib u qaxno si ka soo ahaataba saakay waxaan moodaa in isbedeshay maartay qaabkii iyo magaaladii ay mooday in dadka barka ay sameynayaan waxa arkayda markii baa ku soo dhaafay baa ku labaad dad barka saaran oo barka marka waxaan magaalada qayb ka mid ah marka soo marnay saaka ugu hore waxaan qaado horta qofka wareega qaado waxay ahayd gabar ka barakacaysa degmada Hodan gaar ahaan Siigaale marka aan wareystay waxaan ka wareystay maxaa ka qaxaysa marka waxay dhahday saaka 10 saac waa 10 saac xilliga suxuurta waxaan noo imaadeen ciidamada dawladda ciidamo ka mid ah waxaan u wargeliyeen inaan soo guurno xaafadda inta qallaasax waa ka digayo magaalada inta soo marnay caadigeed xaaladeeda inkastoo ay dhayn qabanayeen dad badan oo qaxaya marka magaalada jawigeeda ka iska fiican yahay qalaasada ma jiro anta sidii xilliga Etoobiyaanka iyo maxaakiimtii berigii qaxay dad ku guuraayo bajaaje iyo gaar dameero oo la qaxiyay oo laga jartay korontadii biyaha dhufaysan laga qotay agtooda marka waxaan dhihi lahaa dadka shacabka haloo turo waa dad masaakiin ah dadkan cid wax ma siiso dawlad wax ma siiso mucaarad wax ma siiyaan ayaga noloshooda ayaga dabarta
haddana meeshii yareedoo wixii yareedoo haysteen in laga sii barakiciyey jangidahay ku jireen kulaalka badna oo loo sii qaxiya geedo hoostooda waa ayaan dara. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaa iyo in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier